magacayga waxaa la dhahaa istaayl nuur xasan aa la dhahaa gabadheedana oo hadda xijaabada allah u naxariista raxma cali ciise la dhahaa gabadheeda wiil baa yiri waan rabaa wiilkii hadduu yiri waxaan dhahnaa waayahay waalidkaada noo keen annagoo waalidkiisa ka sugayno wiilkii hal maalin ay waalidkii yimideen halkii maalin anigana ma joogin oo waxaa qof iska xamaaltahay dhaqoo baan jiray adoogana duurku jiray xaabo noo jiray haddaan nimid ilmihii way noo sheegeen waxay yireen hooyo gabadha waa loo yimid waxayna yireen galabta aan soo noqonaynaa galabtii aniga marka cayoomaana imaanan 11 saac markeedan dhaqoogii soo bagay adoogana wuxuu yimid maqribkii amankeeda asxaabadii keenay markuu xaabadii keenaya hadalkii u sheegaan dhahay gabadhii wiilkii soo jirsaday ogaaw wuxuu yiri haye hadda cidina waxay yireen birri aa imaanayna ay dhaheen ogaaw waayahay yiri waan sugaa maalintii saddexaad waan sugayni ma ayna imaan maalintii afraad aa wiilka soo galay marka gurigeygana wuxuu leeyahay laba irid ilmihii waa iska jiifeen gabadhana waa jiiftay gabar kale dumaashideed ee way jiiftay asoo waxa laga soo kacay dumaashidii ka soo kacday asoo kor taagan qaboojiyihii oo biyaha oona galaas biyo afka ku haasta asagana oo cabaayo markii la soo wada kacay intee ka soo gashay leeyahay wuxuu yiri waxaan ka soo galay tubada xageeda waaba noo xirnaaya mani xirneen gacanta farta soo galiyay baadna qufilin gacanta farta soo galiyay gurigana igama xigtid biyaan kas cabaay gabadha soo baxday maxay tiraay maxaa dhacay balameed magaciisa magaciisa balada magaciisa kale ii sheegay Cabdikaafi maxaa jira wuxuu yiri biyaan ka cabaay guriga oona ay qabtay guriga ma adeega xigtaa may ma ka xigay adiga aawi hooyo iyo aabbo waa idin sugaayeen aabba iyo hooyana hal mar la yimideen aabba iyo hooyada hal mar la yimideen oo gabadhii u timideen aabba iyo lama arkin hooyo aabban waa ni sugaayeen maxaa dhacay Cabdiyo wuxuu yiri adiga raxmoy adiga ma adrabtid ani ima rabtida u maleena ani waxa sheegay dan i xaaje kama lihi ani in iraacda jasnaa hadda in iraacdaan rabaa aniga gabar oo waxaan iray tiri aniga gabar weena ahaa tiri gabdha fiicay intii laga dhiib in liiga dhiibo liigana soo doonto hooyo aabiga soo doontid ogolaashadooda on kuugu raaco maan aniga in la baxo iyo soo baxan ku booba iyo marabi wuxuu ugu jawaabay saas miya arintaada haa maanta ka bacdi galabtii 11 saac markay ma galabta ka bacdi yaa aan ku imaado ay arki doontaa waayahay ani adiga waa isla joognaay wuu dhaartay hadda u dhaartay gabadhii albaabkay soo xireen intay soo fadhisteen biyihii idaacagu ku bilawday qawoojii oo ka cabay ay ku bilawday markaas beerka Maryam beerka liiga aaday tir gabadhan waa soo baxday waxay tir marina la dhahaa bismillaahir rahmaanir rahiim biyihii gabadhii way furtay raxmadii biyihii way daadisay waxay ku daadisay geed fiyoora ah geedkii fiyooraha ahaa isku markii wuu dhareetay wuu qalalay markuu qalay geedkii way jartay markii jartay annagana ma ay noo sheegin waa inaga qarisay oo waalidka ay habeenkii way seexatay subxii aad galabtii iyadoo sidaasay markay aan imid hooyo beerkaas la iga haastaa ma og wuxuu yahay beerka gaarin marka maxaad guusun ku daray ninka qaboojiyaha ay biyaha ka cabtay gabadha beerka laaga qabsaday qaboojiyaha asaa kor taagnaa biyo ka shubta Soomaha qaboojiyihii ay cabtay laagama dambeyn hortiisana asaaba guriga soo galay oo biyo ka shubtay oo haddana xiray say gabadheena u sheegtay gabadhaana ay u sheegtay idana waa taagan tahay waa tan gabadhii idana xog ogaalka ahay marka si saas u ahayd gabadhii beerkii ugu haysa beerkii caloosh waa isla wada barareen hadee isla wada barareen waxay tir hooyo miya ahaa aniga inta hadda waaga bariin habeenkii waxay tir hal ii bixiyo waxaan dhahay hooyo habeenimo waaye inaan wax wadna noola maleenaaya adigana ma ku qaadi karna oo lagu ma qaadi kara si lagu yeelay ma lahayn waaga hanoo bariyo waxay tir hooyo yana waag baris ma rabi waa idin bariyaa iga bixiyo inta wiil baa marka quraan saaray waxaan dhahay quraanka hadda lagu saaro awada bari hada waaga bari aan ku qaaday ma yeetir hal iga bixiyo wiilish waa bixin waaga soo bariin adiga 10 saac habeenimo adooga inta ka kiciya erbal gabadhi saan waa si darsatay
bal saaray sheegaysaa gurigan hal iga saaray leedahay guriga kaale ka saar warkaas ay tiri guriga waxa ka horeeyay tiri aabbo iga kiciya aabba hadda kicisiin laba salaadoo sunnaha ii tukado adigana hooyo laba salaadoo sunnaha ii tuko walaalkeed oo Cabdiwaaxid la yiraahaa asagana waxay tiri Cabdiwaaxidna laba salaad oo sunnaha ii wada tukada saddexdiina ee hooyo iyo aabboowna iyo cafiya waxaan iri hooyo waxba ma arkaysid insha Allah waxaad arkaysid ma lehe hooyo iska dhaaf calool xumad idoo labada ilin ka keenayso indhaheeda biyo ka dareero labada meel oo beerkii qof jafayso saas beerkii intay qabsata dhag siinayso waxa beer ku dhagan inay iska soo bixiso oo qabtaan nab bay siinaysaa saas ay leedahay marka sayr hooyo iskrifna iska dhaaf may hooyo beerka u jeedo beerka u jeedna calooshii hadana sii wada barartibo hooyo guriga iga saaray tiri isku markii adooga markuu salaadii tukanay oo korkeeda tagnay oo wada duceynay ay tiri guriga hal iga bixiyo gurigan ha igu haynin iga bixiya guriga gaar kareeta la gaar gacan la soo qaaday gaar gacanka lagu qaatay guri islaameedan geeyay oo qaraabada ah oo laakiin oo qofta islaamnimo leh ma aha hadda waxa isku xigna ay laheen walaalay gabadhiya saa idhahdii meelan kaloon geeyana ma lehe gurigaadan u soo qaaday idna waajibta taa waa u garaacna ilaahay waxa iga sareeyo waayahay dhaad iska soo gilay waa soo gilin ay hooyo kaadi ay hooyo waxaan dhahay kaadi hadii ku aysaay kaadi ma i haysta iska dhaafay tir beerkii isku markiiba waa sii bar gabadhii hadday saas noqotay waxay tiri hooyo iba seexine waxay dhaaday aabbo kaale adooga waxaan dhahay wiilishan culimada quraanka saaray u doon raashin ana hilib u soo gad markaas wuxuu yiri aabbo kaale tiri aabbo wax baan ii sheega adi iyo hooyo wax baan ii sheegay ballan ee iga qaadeen markaasuu yiri aabbaha waan ka aqaana aabbo wuxuu tiri aabba gacantiisa inta saas gacanteeda u soo gacantiisa tiri aabba gacantii adooga isku dhiibay ay labada gacan qabsatay ay tiri aabbo iga ballan qaad wax baan ku sheegaa aabbo ballan wax baan ku sheegaa hadhow ina dib ninkaas la gaarsaneen oo farskeyga aaqara iilkii afayraa u fadhiyay loo gaarsaneenin iga ballan qaada aabbo wuxuu yiri waa ka ballan qaada aabbo waxay tiri aabbo waa idinka qarinaay buuqa idin diidaay aabbo bale asku magac dheeryahay magaciisa kalena ana hadda magaciisa maxay Cabdikaafi shalay galabtii guriga uu soo galay qaboojiyaha ayuu biyo soo kacabay anaga soo kala kacnay waxba kama dhigan aniga asaga waa isla hadalni wuxuu yiri iraac muku raacayaan dhahay hadda jasna wada raacina aday ku taalaas yiri uu ii dhaarta hadana walaashay wuxuu farin igu soo faray haday raxme intay cunug ay dhashay ay hoow tiraaho waa aniga Cabdikaafi magacayga laga bedelo wixii dhan waxaan dhahay tir hooyo oo iyada dhaqo ka timid aabbo oo xamaal ka imaad hadana oo gaar gacan ama wax ka yimid ha u sheegin ka qariya waa idinka qarnay hadda wixii waa qars beeshi caloosheedan mu jeedin ha beerkeegana mu jeedin ha ninkaasaan god u galay asaa wax isiiyay qaboojihiina biyihii waan ka daadiyay idinka arki doonteen guriga marka tagteen geedka fiyooraha ana gacanteeda ku jaray fiiriya hadda beentay u maleynaysan qaboojiyana waa dhaqdhaqay biyana kuma shibina ogaado aabbo was qaaday wuxuu station ka taga aabbo ballantii aawi u tir ballantii iga qaaday aaway soo ballan ma iga qaadan ha aabbo yiri ana waxaan dhahay cali adeysas leedahay iska dhaafan dhahay ilaahay xaqiisa u sabreenay saan dhahayna adoog irida markuu ku sii baxay gabadhii wiilashii waxay tir quraanka saaray walaalayaal oo iska cafiya kulligeen inta muslimiin hooyo waxaan ka bariyay tir intii deeris magacayga muuqaalkayga taqaan ina igu tagtid cafiya dhig gabadhaaseete hooyo waxaan iritii rabbi idas ilaahay ku qabto maayna hooyo waa caafimaadaysa jibdaan dhahay hal mar lay gabadheedii isjiidiba bas calooshana laakiin zaid ay u kacsaneed inta muslimiin ay dhan wada arkeen quraankan ugu dambeeyay waxay tir hooyo aabbo walaalayaal waxaan idin baryaa mara faataxa quraanka waad akhriseen mar faataxana iigu dara ana aniga codsana codsi waay iguna sadaqaysta sidii wiilashtii ka bacdi tii rabbiyaaba timidbo meelay ka baxday meel kale waan kala garan waay saasi hal mar ii soo fiirisi hal mar wiilashii quraanka saaray fiirisi rab indhii afku isku qabsataybo dhibaatadaas noogu weyn oo waxaan u diidnaa ilaahay nagana soo doonan oo noono iimaan oo na sugayni dhibaatadaas weyn hadan noo sii geesteen رحمة ما كجبر سريع جبر نوعية رحمة رحمة waxay ahayd gabar gashaanti gabdhaha ta wareega ay ahayn
gabdhaha xaafadaha ama gabdha faceeda oo la socon jirin gabdha ma aadi jirin afar sac gurigooda say ku jirtay markay leedahay meelaha aadaa xijaabkeeda ay qaadan jirtay injineerkeeda ay qaadan jirtay magaalada hataa badnaa ma aadi jirna markay wax rabto waa soo aadaysi waa iska imaanaysi qof wareegteedoo wareegaysan hataa ma ahayn gabar baariyad aad baariyada ay u ahayd annaga reer Dandhiya iska dhardhaqo iska aadan guriga iyo ilmahaan u jeedin iidahayn jirtay iyo wixii walaalkeed aloo yimaado hataa wax iidaa siin jirtay